caawa waxaan u ballansanayn ama aynu caawa isla eegayni waxa weeye waa afarta tiir ee ganacsigeenu walaalayaal ku joogo tiirar af Soomaali ahaan waxa la yiraahdaa qotinku waxa weeyaan gurigu u dhacaa haddii aanu qotinadiisu adkeyn marka innagana ganacsigeenna haddii aanay tiirarkani ku adkeyn oo aanay ahayn tiirar adag oo runtii aad iyo aad u adag haddii aanay ahayn dee wuu ma garanaysa ganacsigaagi ma taagna marka waa inoo muhiim inaynu tiirarkeenna hagaajinno oo tiirar adag aynu ka dhigno mar kasta iyo goor kastana insha Allah walaalayaal aynu qorsheyno oo waxa weeyaan aynu hubinno marka caawa inta ugu badan waxay noqon doontaa afarta tiir inaynu baranno ee ganacsigeenu ku joogo isla markaana inaynu qiimayno oo qof waliba caawa isqiimeeyo marka ma sha Allah waa qiimayn iyo waxa weeye ama imtixaan iyo waxa weeyaan iyo ma garanaysaa inagii oo baranayna afartan tiir hadda kadib markaad barato kaliya baad isqiimayn war tiirkaasi ma jooga tiirkii kale ma jooga ka kale ma jooga afarta tiir haddii aad wada saxdo oo ay ku wada taagan yihiin maxaa tahay ganacsi adag baa ku dhisan ma sha Allah tabarakallah haddaba walaalayaal afartan tiir wax kale ma aha number 2 tiirka koobaad waxa weeye waa recruitment waxa la yiraahdaa Soomaali ahaan waa shaqaalaysiin waa qotinka ama tiirka shaqaalaysiinta waxa uu ka yimaadaa dadka aad taqaano ee contactiga kuugu jira ama Facebook ha kuugu jiraan ama ha kuugu jiraan WhatsApp-ka ama Instagram ha kuugu jiraan ama meel kale ha kuugu jiraan asxaabtaada aad taqaano ee contactiga kuugu jirta ayaa la xiriidho ayay ka yimaadaan dadkaad shaqaalaysiinayso waxa lagu sameeyaa sidoo kale opportunity presentation inta jeer aad samayso bandhig aad soo bandhigto shirkadan ayaa tiirkaasi aad ku xoojinaysaa haddaba qodobka labaad waxa weeyaan walaalayaal qodobka labaad intaan aan guda gelin qodobka saddexaad waxa weeye productivity macnaheedu waa maxay waa wax soo saar markaad hawl ku jirto hawshii mar walba maxaad u baahan tahay inaad qiimayso waxa ay soo saarayso waxa ka dhacay waxa uu kordhay waxaasoo dhan soo ma marka productivity waxay ka yimaadaan inta iib ah ee aad tafaariiq samaysay intee in leeg oo iiba ayaan sameeyay bishan waxa weeyaan ayay ka imanaysaa anigu alaab ma isticmaalay oo faa'iidadii alaabta ma ogaaday ayay soo kale ka imanaysaa ma sha Allah tabarakallah haddaba dadka marka tafaariiq samaynayso macaamiil baa ku samaysmaysa oo meeshii dad baad alaabtii ka iibinaysaa macaamiishaas ood adkayso ama se aad xoojiso iyo dadkii aad qortay oo aad iyagana xoojiso oo aad adkayso labada haddii aad ku filnaato waxa ku imanaya marka waxa loo yaqaano retention qodobkii saddexaad ayaa saa kugu dhismay marka way isku xidhan yihiin labada haddii aad si fiican u adkayso macnaha waxa weeye waxa tahay qof ka adag sida uu ma garanaysaa macaamiishiisa inuu daryeelo oo uu ilaaliyo isla markaana teamkiisii ay yihiin kuwa shaqaynaya oo retention xaalad yani joogtaa ku jira marka shaqadeena waa maxay waa productivity iyo recruitment iyo retention saddexda way marka retentionku waa kanoo kale imika aan leeyahay war teamkiini ma ku jiraan kulanka ma u dirtay haddana u dirin share garaan ku leeyahay weeyaan because waxbay fahmayaan tababar baad bixinaysaa waxa weeyaan wax badan baad ayaa u kordhaya yani halkaas waxa ka soo baxaysa inaad tahay hogaamiye teamkiisa u jajaban adigana lugtii ama udubkii saddexaad baa sidaas walaalayaal kuugu jooga saddexdaasba haddii aad joogtayso saddexdaaba haddii aad joogtayso waxa iyadana automatically aad joogtaysay oo iyadana ku taagan udubkii afraad udubka afraadna wax kala maayane waa yani horumar weey horumar macnaheedu waxa weeyaan koritaan ganacsigaaga inuu korayna waxaad ka garan kartaa imise qof ayaa teamkaaga darajada bedelay teamkaaga ma level 1 bay ku wada jiraan mise levelkii wali ay hoos ku jiraan oo preferred customer
is a team bawli malihid wali koritaan ganacsigaagi ma sameyn iyo sidaad kolba productive u tahay ma garanaysaa ay adigu aad ii badan u samaynayso ama si aad dad u shaqaalaysiinayso marka guud ahaan walaalayaal trainingkeenu caaw wuxuu dabaqi doonaa inaan iska qiimayno afarta qodob insha allahu tacaala ma sha allah dhammaan afartaasi waa afar muhiima bal waxaynu ka horreyn doonaa walaalayaal haddaba productivity waa maxay productivity sidaan hore u soo sheegnayba waa wax soo saar weeye waa awoodda uu ku soo baxayo ii badan uu kaaga imanayo weeye marka waxaa laga cabiraa walaalayaal waxa weeyaan waa retail clients macaamiishaadii sidoo kale waxaynu ka cabiraynaa preferred customers labadaasi waxa weeye waa dadka cusub ee aad duwaangelisay iyo macaamiishaadii yani bishan intay leego macaamiila ayaa alaabka iibsaday bishani intay leeg oo qof ah ayaa qortay ayayna walaalayaal iska qiimeynaynaa ma sha Allah hadaba hoo dhawey meesha sidee baynu ku cabiraynaa ama sidee baynu ku ogaanaynaa waxaynu ku ogaanaynaa in udubkan productivity inoo taagan yahay active case credits inta CC ee cusub ee aad haysato bal systemkaagii fiiri bishu maanta 10 bay maraysaa imisa active ah ayaa kugu jira active na macnaheedu waxa weeye waa iibka aad ID-gaaga ama magacaaga aad ku samayso oo lagu daray iibka dadka cusub ee bishan soo galay ganacsiga ay sameeyaan maaha dadkii aad bishii hore diiwaangelisay waayo bil cusub baynu joognaa bishii hore wixii aad qabatay alxamdulillah lacagteedina waad heshay bonuskayga waad heshay waa kala faataxaysay soo ma alaab hadaad iibisay faa'iidadeedu waad qaadatay taa hadal kama joogo okay bil cusub baynu joognaa bishan hadda aynu joogno intee in leeg oo alaab ah ayaad iibisay intee in leeg oo dad ah ayaa CC kaaga yimaadeen marka labada hadii tusaalahan 4 CC ay ku yimaadaan productive tahay ma sha Allah CC-yada ugu yar ee aad udubkani inuu ku taagan yahay iyo in kale aad ku ogaanayso waxa weeye bishii shirkadu waxay gooysay way fikirtay shirkadu waxay tiri marka maadaama aan qiimeynayno udubkani ama dhidibkan aan qiimeynayno maxaynu ku cabiri karnaa waxa la isla gartay markaa in qofka lagu qiimeyn karo 4 CC hadduu ka hooseeyo udubkii uma joogo dhidibkii wali uu daciif haddii laakiin 4 CC iyo ka badan ay tahay markaad isku geyso shaqada dadkan cusub ee qabatay iyo waxa weeyaan macaamiisha alaabta iibsadeen productive tahay ma sha Allah way wad shaqeynaysaa 4 CC wixii ka badan marka waa maxay faa'iidada ay ku leedahay udubkan ama productive inaad tahay oo uu ku taagan yahay productive wax kale maaha walaalayaal kaba soo qaad maanta dukaan baad leedahay dukaankaagii bishan waxa weeyaa minus buu galay tusaale ahaan ama bishii hore leeyahay cilad yar baa jirta sorry sorry walaalayaal hadday maqashaan hadda ii sheega leaders leaders may maqashaan mise ma maqashaan waaye wadi maqashaan ma sha Allah aad baad mahadsantii walaalayaal marka tusaale ahaan ganacsi baad leedahay dukaan baa ku furan dabcan dhamaantiin dukaan baa inoo wada furan waxaynu nahay dad yani ganacsi leebaynu nahay marka ganacsigaagii ama dukaankaagii bishii hore wax faa'iido ma soo saarin laakiin bishani waad shaqaysay aad baad u shaqaysay faa'iido ayuu soo saaray ma sha Allah faa'iido badan buu dukaankaagii soo saaray marka halka maxaad ka garanaysaa productive inaad yani inaad wax soo saartay oo wax soo kordhisay oo natiijo wax ku oolaad samaysay marka
udubkani waxa weeyaan waa udubkaas oo kale weeyaan walaalay waa adigoo dukaan leh dukaankaagii muxuu bishan soo saaray weeyaan haddaynu si yaro gaaban u fasirno maasha allah marka faa'iidada uu leeyahay waxa weeye you earn more money lacag badan baad helaysaa because waxa weeyaan walaalayaal haddii aad maanta alaab badan ay iibino bishani bishan alaab badan baad iibisay 4 cc alaabaad iibisay 4 cc alaabteed iibisay markaad assistant tahay tusaale ahaan dhaqaale badan baad ka faa'iideysaa dhaqaale aad u fara badan ayaad ka faa'iideysaa assistant wixii ka sareeyana kaba sii badan maanta labadii cc haddii aad buuxisay wadankii aad ka iibsato alaabta halka cc waa $180 soo maaha awalna muxuu ahaa $240 halka waxa kuugu jira halkii cc imsa kuugu jira $60 soo maaha maasha allah $60 baa kuugu jira marka 4 cc iibiso waxaad ka faa'iideysaa $240 soo maaha 60 $240 ayaa 4 cc kuugu jira faa'iida taa macnaheedu waxa weeye 4 cc baad samaysay lacag badan ayaad faa'iiday $240 ayaad faa'iiday waa haddii aad tahay assistant supervisor haddii aad tahay supervisorna kaba sii badan haddaad tahay managerna lacag badan baad faa'iiday maasha allah lacagaad fara badan ayay faa'iiday marka qodobkan ama rukunkan inuu ku joogo laba meeloodba waa u muhiim kow macaamiil baa ku samaysmaysa oo waxaad noqonaysaa leader leh macaamiil adag macaamiishana alaab had iyo jeer ka iibiya faa'iido fiicanna mar walba ka sameeya ayaad noqonaysaa maasha allah sidoo kale waxa weeyaan group baa kugu samaysmaya groupka kugu samaysmayana iyadana commission ayaynu ku yeelanaynaa marka that's why waxa uu yahay rukun aad iyo aad walaalayaal inoogu muhiima inaynu adkayno insha allahu tacaala waa yahay haddaba sideeba dhaqaalaad u samaynaysaa tusaale ahaan markaad assistant supervisor tahay alaabtoo kale haddaynu soo qaadno waxaa dhaqaalo laga sameeyaa forifa markaad assistant tahay 35% ilaa imisa 48% baynu ka samaynaynaa tafaariiq ahaan marka alaabta u siibino 35% inta u dhaxaysa ilaa 48 yani 35 markaad assistant tahay supervisorka markaa tahay waa 38 assistant managerka markaa tahay waa imisa waxa weeyaan 43 managerka markaa tahay waxa weeyaan walaalayaal maasha allah managerka markana waa 48 baynu iyadana ka faa'iideynaa marka taa macnaheedu waxa weeye alaabtii ayaa faa'iido fiican inoogu jirta maasha allah lacagtaasi waa lacag inoo soo noqonaysa oo lacag kaash weeyaan oo aynu alaabtii ka samayno weeyaan sidoo kale walaalayaal qodobkan inuu ku taagan yahay waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay maasha allah cultivate potential FPO markasta oo macaamiil adag aad hesho macaamiisha adag waxa ka soo baxa liidaro adag baa ka soo baxa waa maxay sababta ay uga soo baxayaan liidaro adag macaamiishada ama dad ganacsigan ka faa'iideysto guule waaweyn ka gaadha sababta ay uga soo baxayaan waa maxay dadka qaar baa koodhanaya anigu ma rabo inaan qofkan la wadaago waayo waxa aan ka baqayaa cid alaabtiiga iibsato inaan waayo oo adigan jecel alaabtii laga iibsaday isaga maxaad ula jeclaan weyday inuu isaguna alaabtii uu iibsado si iibiyo si tafaariiqeeyo oo taas ma khasaara kugu jirta adiga faa'iido weyn baa kugu jirta qofkan berito la haduu darajo fiican gaadho oo manager noqdo maanad adiguna manager noqonayn hadduu supervisor noqdo miyaanad noqonayn maanu qof ka mid ahayn marka waxa weeye qofkan dad badan hadduu keeno awal kilidii wax ka iibsan jiray laakiin maanta wuxuu ku dadaali doonaa ganacsigiisa siduu u dhisan lahaa taa macnaheeduna waxa weeye koritaan badan uu ganacsiga sameynaya marka waxa weeyaan walaalayaal waxa markaad macaamiil badan aynu samayno waxaynu helaynaa dad shirkadan ka mid noqda alaabtiina isticmaalay faa'iidadeediina soo fahmay oo ku soo qancay baynu helaynaa oo teamkeena iyo groupkeena ka mid noqonaya maasha allah marka waxa weeyaan dadka xul waa laga soo xushaa dadka daymanka ayaa ka soo baxa haddii aad maanta fariifo fiiriso oo aad dadka u sarsareeya aad fiiriso waa dad macaamiil ahaan jiray yaa ka mid ah dadkaas walaashan caasha ka mid ah waa top leaderska dadka ugu dhaqaalaha badan leh fariifa ayay ka mid tahay marka waxa weeyaan dad kale ayaa ka wada mid ah oo diamond managers maanta ayaa ku jira dhammaan waxay ahaayeen badankooda dad yani customers ahaabay ahaayeen oo alaabtan marka hore walaalayaal isticmaalay kadibna markay arkeen fursadii ganacsi ka faa'iideystay bay ahaayeen marka qof alaabtii ku soo qancay iyo isku mid ma noqonayaan
qof maanta alaabtiiba isagoon aragun markaaba ganacsiga galaya labadaasi isku mid ma noqonayaan sidoo kale qodobkan inaad isku xoojisaan oo wax soo saarkeena ama productivity-geena ama udubkan aynu ilaalino faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah ganacsiga ay koritaan buu samaynayaa bal tusaale ahaan maanta hal qof baad qortay maasha allah qofkii waxa uu noqday 2 bilood gudaheed supervisor maasha allah kadibna waxa weeyaan oo isaguna tiim adag uu samaystay qof kale aad qortay isaguna sidoo kale 3 qof haddii ay ku wada noqdaan supervisor 75 cc markaaba kuu soo galay systemkaagii taa macnaheedu waxa weeyaan يعني واي نو مهمة كوريتان بدن بوسمي ganacsigaagii adiga oo maasha allah de waxa weeyaan dadkii aad qortay ee productive ka ahayd iyo waxa weeyaan sidoo kale alaabtii aad iibinaysay aad iyo aad ugu dadaalay marka qodobkan haddaad manager tahay haddaad tahay supervisor haddaad tahay payment manager mar walba waa ku muhiim ganacsigaagu inuu sii socdo uu shaqeeyo waxay ku xidhan tahay mar walba sida aad maxay u tahay productive saad u tahay marka udubkan la'aantii ma dhaqaaqayno way guraanadka maasha allah intaasaynu kusoo guraanada qodobka isaga ah walaalayaal waana qodob runtii aad iyo aad u muhiima bal hadda markaa waxaynu tegaynaa inaynu isqiimayno intay leeg baa tahay productive leader walba waxa la doonayaa buug iyo qalin inuu soo qaato buugga iyo qalinka soo qaata insha allah qof walba buuggaaga diyaarso qalinkaaga diyaarso intay leeg baa tahay productive yani qof active ah oo productive intay leeg baa tahay ayaynu qiimeynayna insha allah waaya diyaar ma tihiin maasha allah diyaar waa tihiin soo ma are you ready dhammaantiin walaalayaal diyaar ma tihiin diyaar inaad tihiin baan rajeynaya dhammaantiinba productivity-ga inaynu qiimeynaynaa insha allah waayahay diyaar waynu nahay maasha allah maasha allah aad baad mahadsanti buug iyo qalinka waa inii diyaar intayn leeg ayaynu nahay productive waxaad ma garanaysaa taxaysaa ama liisgaraynaysaa all products you use dhammaan alaabtaad isticmaashay liisgaree imisa shay baad isticmaashay liisgaree okay ana waan qorayaa idinkuna qora insha allah وايه أنقرنا دمانتين إن شاء الله يمس الشيء أما يمس برودكتي أياد استعماش waayahay dhammaan alaabtaada isticmaashay oo dhan mid walba points baad siinaysaa point c evaluate marka isqiime tusaale ahaan imisa kuu soo baxay marka imisa pointi baa kuu soo dhacay mid walba tusaale ahaan haddaad 30 isticmaashay faadima 30 baa soo baxay wow congratulation hambaliyo faadima 30 baa soo baxay amaal xasan 10 shay baa soo baxay maasha allah hambaliyo haye imisa inii soo baxay leedharada kale inoo soo qora qoraal ahaan inoogu soo gudbiya waan isqiimeynaynaa insha allah yani waxa weeyaan alaabtan isticmaalnay shirkadda ayaynu isqiimeynaynaa waayo alaabtaad isticmaashay waa alaabtaad sii retail garaynayso sii tafaariiqaynayso tusaalean daawad ilka markaa isticmaasho dee faa'iidadeedii iyo benefitkeegii ayaad garanaysaa oo cid kaaga aqoon badani ma jirto marka si yaroo fudud baad qofkii uga dhadhacsiin kartaa marka waa inoo muhiim 15 18 axmed 15 maasha allah shukri waa 19
ما شاء الله أنا ولي ألعب كما هيو ودلبنا وعادي ولا الوي كوي من الساعة مصور دلبنا دونتا إذا نوا طبعا ما شاء الله حنبلي يا دمانتين بس قيمة يا مرك شرية طبعا يوحي كسرية دمان ليدرسكا أي بوينتيا ده هلاي وينوس عبيرينا وحنو لنا هاي excellent شقب قروح بدن بعد قبتين and keep it up سي ودا إن شاء الله وفايدة ألعابها سي هكذا سي ودا runtii waa excellent baynu siinaynaa waa A baynu siinaynaa ma sha Allah sidoo kale liidarada isticmaalay 10 ilaa 14 points waa very good baan leenahay way fiican yihiin aad u fiican yihiin sidoo kale 5 ilaa 9 waxaan leenahay haddaad isticmaashay inta u dhaxaysa intaasi waa 5 ilaa 9 waxa muhiim ah inaad ma garanaysaa kor isku soo qaado oo alaab fiican shirkadda ka isticmaasho ayaa muhiim ah haddii aad isticmaashay inta u dhaxaysa qof waxba isticmaalaan aanad ahayn ama se afar shay ka isticmaalay wax badan baa ka maqan marka waxa ku muhiim ah inaad isticmaasho alaab badan because alaab badan haddaad isticmaasho ganacsiga uu kor ayuu aadayaa ma sha Allah more products inaad isticmaasho waa ku muhiim qodobkaas haddii aynu halka kaga tegno walaalayaal waa alaabta isticmaalkeygii sidoo kale inaad productive tahay iyo in kale waxaynu ku ogaanaynaa intee leg oo retail ah ayaad samaysay retail waxa weeye tafaariiqda sida loo sameeyaa tafaariiqda waxa loo sameeyaa walaalayaal dhowr hab ama online baad ku samayn kartaa offline baad ku samayn kartaa qof aad u tagto oo alaabtii u bandhigto ayaad ku samayn kartaa gurigaaga ayaad tafaariiqda ku dhex samayn kartaa ma sha Allah waxa weeyaan meelo badan baad ka samayn kartaa marka intee leg oo bandhiga ayaad samaysay number 1 waayo waxa loo ogyahay bandhig haddii aad samayso in wuxuu laga iibsanayo wax la'aan marna ma ahayn gurigaaga intaad bulshada dadkaad garanayso dhan aad iskugu yeedho ayaad alaabta halkaa ugu soo bandhigi kartaa ma sha Allah oo aad benefitka iyo faa'iidooyinka ay leedahay alaabtu aad u sharaxaysaa oo si fiican aad fahansiinaysaa qofkii intaad u tagto ayaad sidoo kale walaalayaal aad si toos ah iyadana waxa weeyaan aad ugu bandhigi kartaa ma sha Allah sidoo kale walaalayaal online ama FLB 360 ayaad ku samayn kartaa online waxa weeyaan link inaad isticmaasho oo waxa weeyaan walaalayaal linkigaas aad ku iyadana waad ku samayn kartaa ma sha Allah linki waxa weeye inaad qofka u dirto isagoo meel kale jooga alaab baad ku iibin kartaa alaabtaad iibiso company-gu wuxuu kaga iibinayaa markaa qiimaha tafaariiqda adigana discount-kaagii ayaa laga siinaya tusaale ahaan qof baa ka iibisay UK jooga C9 adiga wuxuu kugu joogaa C9 ku tusaale ahaan $110 bu tusaale ahaan kugu jooga laakiin qofkaas marka waxa uu isaga macmiil ahaan ku joogaa ama tafaariiq ahaan ku jooga $150 marka waxa faa'iido kugu jirta company-gu wuxuu ka siinayaa markaa qofkii $150 buu ka siinayaa $150 buu ka siinayaa marka $150 waxaad ka goynaysaa discount-kaagii $110 maxaa soo hadhay waxa soo hadhay $40 $40 yaa qaadanaya marka company-ga qaadanaya no waxa qaadanaya adiga ma sha Allah congratulations marka retail iyo inaad samayso alaab badan aad iibiso iyo waxa weeyaan walaalayaal inaynu ma garanaysaa dad badan qorno ayaynu ku xoojin karnaa productivity-geena insha Allah waaya haddaba aan iska qiimayno intee leg oo xaggii retailka ama tafaariiqdii ayaynu active nahay si productivity-geena ama dhidibkani uu noqdo mid taagan oo xoog leh oo shaqaynaya score yourself isqiime how many imisa product showcase per month bishii imisa bandhig alaabta ayaad samaysay ama gurigaaga ku samee ama banaanka ku samee adaa ikhtiyaar kale imisa ayaad samaysay okay salaan 5 baan sameeyay 5.c salaan 4 baan sameeyay 4.c imisa ayaad samaysay 1-to-1 conversation per week qof ilaa qof aad la hadashay personal recommendation sida screen-ka kaaga muuqata uu ninkaasi ugu bandhigayo ma garanaysaa waxa weeyaan qofkii productiga ugu bandhigayo uu fahansiinayo faa'iidadeedii ma sha Allah waxa weeyaan aad dadka ula hadashay oo aad productiga ugu sharaxday imisa ayaad samaysay invite your FLB 360 per week
imise jeer ayaad online alaabtii ku iibisay imise jeer ayaad alaabtii online aad ku iibisay maasha allah sidoo kale walaalayaal imise follow up ah ayaa ama dabagal ayaad samaysay oo la samaysay macaamiishaadii follow up intee leeg ayaad samaysay give yourself 1 point for each yani mid kastada waxa weeyaan point c intaasoo jeer kadib 15 point wixii ka badan waa excellent weeyaan shaqo qurux badan baad qabatay hambaliyo 10 ilaa 14 waa good waa shaqo fiican weeyi 5 ilaa 9na waana wax badan ka bedesho oo de hore u socoto 0 ilaa 4na 4 ilaa hadda wax ay ku soo baxdayna wax badan ma sameyn marka inaad hore wax badan aad samayso ayaad u baahan tahay maasha allah konton bayt walaasheen maasha allah tabarakallah hambaliyo maasha allah hambaliyo hadaba walaalayaal qodobka waxaynu kaga gudbaynaa waa productivity ma fahanay productivity ku faa'iidooyinka uu leeyahay waxa uu leeyahay faa'iidooyin waxa ku dhismaya ganacsi adag macaamiishaadii baa dhismaysa waxa sidoo kale walaalayaal uu noo leeyahay faa'iidooyin fara badan customers ama waxa ay dad shirkadda waxa ka soo baxaya yani macaamiishaadii waxa ka soo baxaya dad de teamkaaga noqdo groupkaaga noqda ayaa inooga soo baxaya marka aad bay maxay ayuu muhiim inoogu yahay qodobkii labaad ama rukunkii labaad ayaynu gudagalaynaa rukunka labaad waa maxay rukunka labaad waa dad shaqaalaysiinta recruitment markasta waxaan aragnaa inagoo leh si aan team u dhisno waa inaynu marka hore liiska magacyada samayno waa inaynu invitationkii samayno waa inaynu waxa weeyaan warbixintii bixino waa inaynu qofkii haddana dabagal ku samayno waa in qofkii kadibna aynu ku caawino siduu darajada koowaad ku buuxin lahaa waxaynu processkaasoo dhan u maraynaa si aynu u xoojino rukunka labaad ee shirkadeenna oo shaqaalaysiinta haddaba waa maxay faa'iidooyinka uu leeyahay faa'iidooyinka intaynan gaadhin waxa weeyaan walaalayaal sidee baynu ku ogaanaynaa udubkan ama dhidibkan ama qotinkan ama rukunkan inuu kuu taagan yahay waxaad ku ogaanaysaa imise qof oo cusub ayaa diiwaangelisay ugu yaraan bishii waxa laga rabaa in hal cc badh waa minimum yani maaha qasab inta ugu badan runtii waxa fiican 5 cc 6 cc 7 cc oo preferred ah yani dad cusub inaad samayso laakiin minimum qofkan waxba qaban waxa laga doonayaa hal cc badh ugu yaraan hal cc badh aad samayso labada cc badhkaana de 4 cc ay ka dhiman alaabtaad ayaad ku iibsan kartaa soo ma maasha allah marka waxa weeye minimumku bishii waxa lagu ogaan karaa in udubkaasi kuu taagayn kale waxa lagu garan karaa inaad bishii ugu yaraan hal cc badh dad ay iibsadaan oo shirkadii ay ka mid noqonayaan kadibna waxa weeyaan dee ama haddii tusaalaan hal cc uu mid iibsado midna uu badh iibsado labadaa qof bisha dambe ay buuxin doonaan 2 liidar baa kuu samaysay labada mid ka mid ah haddii bisha dambe uu team adag sameeyo supervisor noqday koritaan intee leeg buu sameynaya maalinta hore hal cc uu iibsaday laakiin bishii dambe wuxuu sameeyey intaasoo maasha allah soo ma maasha allah faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah dhaqaalahaagu kor buu aadayaa dhaqaalahaagu waa uu kuu badanayaa sidoo kale faa'iidada labaad waxa weeye waqtigaagii baa kuu badanayaa ma ogtahay for believing waqtigaaga aynu haysanaa 24 saacadood inaad ka badsan karto ma ogtiin su-aasha sharaba in weydiiyo 24 saacadood tusaale ahaan imisa saacadood baad gelisaa forifa waxaad gelisaa tusaale ahaan 5 saacadood adiga shakhsiyan aad gelisaa ma ogtahay inaad kumayaal 5 saacadood isku bedeli karaan taa ma wada ognahay mise ma wada ogin haye leaders waayahay waqtiga aad haysato ee caadigaynu haysano waa uu ku laba jibaarmi karaa waanu ku badanayaa uu ku barakoobayaa yani waqtigaagu sidee buu kugu barakoobayaa qof waliba yani saacado isku mid aynu wada haysanaa qof kasta laakiin waqtiga siduu kugu barakoobayaa mase uu kugu badanayaa maasha allah waxa uu kugu badanayaa tusaale ahaan waxa aad shaqaysaa 10 saacadood per week haddaad 10 saacadood aad forifa geliso maalintii mise noqonaysaa saacad iyo badh saacadii wax saas soo ma
wiigu waa 7 maalmood 7 maalmood uu qaybi 10 saacadood marka maalintii saacad iyo badh miyaan waay karnaa walaalayaal qof waaye 10 saacad iyo badh miyaa jira maya 10 saacadood baad gelisay wiigi kalena 10 saacadood taa macnaheedu waxa weeye bishii inaad ilaa 40 saacadood aad gelinayso 5 qofna waad qortay 5tii qofeed qortayna qof kastaba tusaale ahaan wuxuu geliyay isaguna 10 saacadood halka 5 qof min 10 saacadood geliyay waa imisa waa 60 saacadood sama ma sha Allah 10kaagi u geey 10kaagi markaad u geyso waxay noqonaysaa يعني 5 من 5 من 10 waa 50 10kaagi u geey waa 60 ma sha Allah shantiina waxay sii qoreen iyaguna 5 kale sii qoreen 25 ma sha Allah 25kii qof ee shaqeynayay oo marka lagu dhufto min 10 saacadood ma sha Allah waa 250 ma sha Allah tabarakallah gudahaana waxay isku noqonayaan 310 shantiiba haddana waxa weeyaan walaalayaal waxa iyaguna sii qoreen 5 kale sii qoreen waa 125 weeyi 125kii oo mid waliba uu shaqeynayo 10 saacadood halka waxa kaaga soo baxaya saacada aad u badan ayaa kaaga soo baxaya oo waxa weeyaan saacadaha 10 saacadood shaqeynaysay hadda waxaad haysataa 125 qof oo mid waliba uu shaqeynayo 10 saacadood wiigi uu shaqeynayo halka waxaad ka arkaysaa in waqtigaagi ku batay waayo 1560 saacadood ee halka ka soo baxay walaalayaal guud ahaan waxa weeyaan saacad kastoo la shaqeeyaba wax kastoo faa'iido yimaada ama dhibca hel ama point hel waxbaad helaysaa marka waqtigaad ma ku badan adu 10 saacadood baad gelinaysay laakiin tactics smart ya ayaa waxa application baad isku samaysay waad isbadisay adigu ba isbadiyay marka point wada hel hada doonto dhibca yar hada doonto $1 ba hel $1 aad intaas saacadood hesho dhaqaale badan weeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan walaalayaal marka soo teamkaagu xoogan yahay ganacsigaaguna waa uu sii balaaranaya dhaqaalahaaguna waa uu sii badanaya ma sha Allah tabarakallah waaya adigu waxaad shaqeysay 10 saacadood week 5 qofna waad qortay 10kii saacadood ee aad shaqeysay iyo 5tii qof waa 60 saacadood 10kii saacadood shaqeysay iyo 5tii qof ee min 10ka saacadood shaqeeyay iyo 25kii qof oo mid waliba uu 10 saacadood shaqeeyo waa 310 marka dhammaan la isku wada geeyay macal 120 loo geeyna waa 1560 saacadood per week halka waxaanu ka arkaynaa waqtigaaga inuu maxay aad walaalayaal inoogu batay ma sha Allah haddaba walaalayaal sidee baynu waxa weeyaan aynu udubkan kor ugu qaadi karnaa sidee ba waxa weeyaan dad cusub ama team cusub aad ku heli waxaad ka helaysaa saddexdan meelood waxa weeyaan inaad number 1 aad kor u qaado dadka aad garanayso ee contactiga kugu jira ama teleefankaaga ha noqdo ama facebookkaaga ha noqdo ama meel kale ha noqdo inaad kor u qaado number 2 present the opportunity inaad dadka fursadda u soo bandhigto ha ilaawin mar walba meel kastoo tagto goob kastoo joogto inaad waxa weeyaan fursadaada aad ka faa'iideysato oo aad u bandhigto walaalahaaga fursadan u baahan dad badan maanta waa bilaa camal waa bilaa shaqo ummad badan oo waxaynu ka soo jeednaa walaalayaal ay dadka dhalinyaradoodu bilaa camal inaanay shaqeynayn baan ka soo jeednaa laba waxyaaboodba adduunka uu tartamaa oo forifo waa lagu tartamaa had iyo jeer marka global rally ama dalxiisku dhacayo waxaynu aragnaa 10ka wadan ee xagga hore soo mara innaga waxaan doonaynaa inaan kaalmaha ugu horeeya dalahaan noqono sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan laba arrimood kow dadkeenu waxay aad iyo aad ugu baahan yihiin baro dhagan oo waynu ognahay baahida caafimaad iyo waxa weeyaan dee alaabteena sida loogu baahan yahay ay dadkeenu ugu baahan yihiin waan ognahay number 2 shaqo la'aanta baahsan oo fursad shaqo dadkeenu u baahan yihiin forifana waxay haystaa fursad shaqo oo qofkii dadaala ee kartis yeesha hadafna dhista uu meel adag ka gaari karo sidoo kale walaalayaal qodobka saddexaad waxa weeye ugu horeyn warbixin qofkii waynu soo casuumaynaa warbixintii baynu siinaynaa follow-up baynu ku samaynaynaa waynu diiwaangelinaynaa degdeg intaas waa in lagu dhammaystiro 24 saacadood gudaheed
qofku waa inuu xubin ku noqdo okay hore u socdo hawsha kala socoto ma aha hawsha inay madaxa isla gasho walaalayaal qofkii waa inuu 24 saacadood inta uu shirkadda waxa weeyaan xiisaheega iyo xamaasadeeda iyo wanaageega uu ku dhex jiro ee aanu dana kala yeelan adduunyadu way mashaakil badan tahay qofka bini'aadankii bal adiga laftigaagu isqiimee in yar waxa weeyaan waxa ku hor yaalla maanta dad qaban weydo wax kala markaaba ku qalindaaraya oo kaa kaxaynaya hadafkaagii qofkanna ha la yaabin berri toola haddaad 24 saacadood uu xubin ku noqon waayo hadduu isbedelo ha la yaabin because adiga ayaa waqtigii uu qofkani carcarta lahaa ee wax weeyaan wax uu qabsan lahaa adigii baan dadaalin adigiiba waxa weeyaan wax muuqdaan qofkii aan la samayn marka maxaa la doonayaa 24 saacadood qofkii inaad ku diiwaangeliso markaad diiwaangeliso maxaa uu qofkaasi yahay shirkadda muxuu ka yahay preferred customer buu ka yahay CC ma haysto wax CC ma haysto sidii uu CC ku samaysan lahaa ee uu dhibcaha ku heli lahaa yaa laga doonaya marka inuu fahansiiyo ma isaga laga doonaya ya adiga laga doonaya marka waxa la doonayaa qofka inaad ka caawiso hadda waa distributor uu isdiiwaangeliyay xubin weeyi sidee buu hadaba ku buuxinaya darajadii koobaad waa inaad la qorshayso subax walba aad ka warhayso halka wax u maraya inaad ogaato macaamiil shalay alaabmaadiisa inaad tiraahdo inaad mar walba ka warhayso ilaa waxa weeyaan maantaas alaabma yaa ku diyaarsan tiraahdo qofkii waa inaad gacanta ku hayso maxaad qabanaysaa ay kale qof ama laba qof ama saddex qof hadaad haysato bishaasi ku mashquul saddexda qof ku mashquul xoogaaga iskugu gee ya la fududee la qorshee haddaad uu ka arko adigoo ay kaa dhabtay serious kaa tahay inaad la buuxinayso darajadii oo ay kaa go'aantay inaad hore u socoto isaguna wuu dhaqaaqaya ganacsigana walaalayaal guushiisa waxa weeyaan intee in leeg buu qofkani serious yahay intee in leeg bay qofkani ka go'anta intaa weeyaan serious haddii aad ka noqoto ganacsiga ama cusba ama qof meel sare ka jooga ah shirkadda hadduu ganacsigani serious kaa yahay oo si dhabow aaminsan tahay oo waqtigiisa iyo dadaalkiisa aad siiso ood u soo jeesato wuxuun baad ka gaadhi laakiin haddii ay kaa noqoto yani iigu eego dee lugta unaad kula jirto walaalayaal serious committed bay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkani hadduu serious noqdo oo uu si dhaba ganacsigan ugu soo jeesto walaalayaal waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qofkani ma garanaysaaye hore u socon doona insha allahu tacaala maasha allah haddaba walaalayaal inaad ka caawiso ayaa la doonayaa qofkaas sidii uu waxa weeyaan darajada koobaad uu ku buuxin lahaa maasha allah maasha allah haddaba walaalayaal waxaan doonaynaa hadda inaan isqiimayno oo aynu iska qiimayno sida aynu ku nahay qaabka dadka loo sponsor gareeyo ama dadka loo qoro ama loo shaqaalaysiiyo waynu ku kala fiicnaan doonaa laakiin balaan isqiimayna insha allah waaya score yourself how many contacts per week imise qof ayaad weekii la hadashaa dadka contactiga kugu jira haye imisa weekii how many contacts imise qof ayaad la hadashaa week contactyadaada imise qof ayaad la hadashaa week haye how many opportunity presentation per week bandhig ma samaysa imise bandhig baad samaysaa haddii aanad bandhig samayna bandhigyadaad samayso imise qofaad kasoo qayb gelisa weeyaan macnaha zoom baan samaynaa tusaale ahaan imise qofaad kasoo qayb gelisa laakiin tagu muhiimsa waxa weeyaan walaalayaal imise contacti ayaad la hadashay contacti maxaa loo leeyahay dad badan oo inaga mid waxay moodayaan in tiimku ku dhismayo waxa weeyaan yani markuu qofku linkigaaga soo raaca isla markaa uu isdiiwaangelinayo shirkadii ka mid noqonayo taas waxaa ka muhiimsan dadka contactiga kuugu jira relationship qofka ma la leedahay xiriir ma la leedahay qofkani adiga ma kugu qanacsan yahay qofkani qofku bartama yahay intee in leeg baad qofkan ku kalsoon tahay inuu iibkii samaynayo dabcan qof aad maanta isbarateen oo waxa weeyaan si fiican ganacsigii u fahmay oo ku qancay oo adigina kugu qanco ku aaminay dee maasha allah weeye xiriir fiican baad la samaysanaysaa qof mas-uul aad u aragtay social media iska barateen waa guru weeye maasha allah wuxuu kuu gelayaa markaa group A ama group B buu kuu gelayaa dadka saamaynta aad ku leedahay wuu kuu gelayaa okay marka laakiin dadka ugu muhiimsan waxa weeye contactiga dadka kuugu jira weeyaan teleefankaaga ama facebookkaaga ama se whatsappkaaga
marka imisa ayaad samaysay imisa bandhig ayaad samaysay sidoo kale imisa qof aad soo casuuntay imisa qof ayaa isqoray oo tiimkaaga noqday bilihii la soo dhaafay ilaa 6 bilood haddaad ku jirto 2 bilood 3 biloodna imisa qof how many new CC last month imisa CC cusub ayaad samaysay bishii hore CC-daadi cusub imisa haayeen give yourself 1 point for each mid kastaba point C imisa ayaad samaysay 5 ayaan la hadlay contactii ku jira 10 ayaan la hadlay weekan haddaan ku jirno 20 ayaan la hadlay 30 baan la hadlay haye 30 dhibcood dalka ku haysataa bandhig waxaan sameeyay 5 30 20 in alla intii aan doonay ayaan sameeyay 6 bilood ama dhowrkii bilood oo dambeeyay dadka FBO noqday teamkayga noqday shirkadda ka mid noqday waxay gaadhayaan 6 7 8 good CC-yada cusub ee bishii dhawey sameeyay waxay ahaayeen aan qiimeeyay 10 CC bay ahaayeen taa macnaheedu ilaa 5 qof meelahaas ay ahaayeen CC-yada cusub ee bishii dhawey sameeyay ama se qofkiiba qof kala duwan galiyay oo CC cusub bisha imitin weeyaan CC cusub macnaheedu waxa weeye waa CC-yada dadkii aad bisha qortay sameeyay weeyaan iyo dadkii ay sii qoreen laftigoodu CC cusub bay ku galayaan hadhowna waad baran doontaa CC cusub iyo macnaha laga wado markaad manager noqotaan waayo CC cusub inaad mar walba yeelato ganacsigaaga waa ku muhiim CC cusub waxa weeyaan iib cusub weeyaan sales cusub weeyaan sale-kii hore bishii hore maaha dadkii aad bishii hore waxay aad keentay ee iibsadeen no bishan hadda aan ku jirno ama last month imisa ku soo baxay ma sha Allah waayahay leedaradayna aan fiirino aad bay u mahadsan yihiin 250 310 ma sha Allah idil iPhone qofka ay ku qoran tahay wali miya war waayahay imisa soo qora marka walaalayaal was qiimeynayna mood imisa ayaynu samaynay insha Allah soo qora inoo dhaqsada insha Allah laba qodob bay noo hadhay labada qodobna waxa weeyaan retention-ka iyo ma garanaysaa development-ga marka labadan hore ugu muhiimsan labadan haddii aad ka adkaato labada kalena waad ka adag tahay macnaha weeyaan ama manager ahaw ama senior manager ahaw ama diamond manager ahaw this is must tani waa qasab weey qof walba inuu CC cusub iyo 4 CC sameeyo ee bishi qofna lagama dhaafin manager ahaw meesha doontaa ayaa laga dhaafin inaad 4 CC sameeyso no way waaya dadkan qoray waa ilaa 8 qof CC-yada cusub waa ilaa 5 CC cusub Fadima hambaliyo inu leenahay walaasha Fadima ma sha Allah tabarakallah hambaliyo inu leenahay ma sha Allah 8 qof bay qortay CC cusub 25 CC ayaa halka uga soo baxay walaasha Fadima ma sha Allah hambaliyo leader ma sha Allah inu leenahay waayahay ما شاء الله وايه يا كله ما شاء الله سوقر إن شاء الله ولا ليال أصوّد قرن ولا شيء وشقيسي إنه نيته وهم بلينا إنه كنا سوقر نقط فلوبا CC-yada cusub bishii waxa la yiraahdaa CC cusub yani preferred customer CC ma sha Allah waayahay aad baad u mahadsantii dhamaantiinba hambaliyaad leeyahay marka hadii ay ku soo baxday walaalayaal si lamid ah hadii ay 15 iyo ka badan ku soo baxday waa excellent baan leenahay sida Faadima kale walaasheen ma sha Allah hambaliyaan leenahay 25 CC bay gaadhay oo cusub marka ma sha Allah hambaliyo hadii ay ku soo baxday 10 ilaa 14 waa ku weeyi 5 ilaa 9na waa hore u soco weeyi waxa weeyaan 04na de wax badan baa ka qaldanay iska sax weeyaan okay was qiimaysada Soomaa qodobka kale inuu gudbaynaa qodobka kale waxa la yiraahdaa walaalayaal qodobka kale waxa la yiraahdaa retention waa maxay macnaheedu af Soomaali ahaan maxaa u taqaanaa retention
af Soomaaliya inoo haya ereygaas af Soomaali ahaan aniga waxaan u bixiyay retention waa joogtiin baan filayaa soma joogtiin af Soomaali ahaan retention wax kale ma aha af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa walaalayaal waa joogtiin weeyaan waayahay marka waa joogtiintu waa maxay waa intee in leg stability baa laga hadlayaa intee leg buu ganacsigaagu uu mid yahay taagan oo shaqaynaya sidee baad ku ogaan kartaa marka laba meelood baad ku ogaanaysaa waa downline-kaagii iyo macaamiishii bishii hore kaa dalbaday alaabta may yihiin macaamiil si joogta alaabtii kaaga dalbanaya oo alaabtii weli waxa weeyaan kaa isticmaalaya ma yihiin marka how do we measure sidee baad ku ogaanaysaa in ganacsigaagu yahay stable yani constant ganacsi degan oo shaqaynaya oo retention oo maasha Allah iyo udubkan inuu ku taagan yahay sidee in leeg baad ku ogaanaysaa yani maanta tusaale ahaan war maasha Allah hebel waxa weeyaan meheradiisii si fiican bay ugu socotaa yani ganacsi cusub buu halka ka sameeyo macaamiil fiican buu helay si wanaagsan bay ugu socotaa badanna uu sameeyaa faa'iido badan bay bishii soo xiraysaa marka halka waxa weeyaan hebel ganacsi fiican oo qurux badan oo si fiican u kobcaya ayuu sameeyay halka maxaynu ka garanaynaa marka in hebel ganacsigiisa dhisan yahay Soomaa waa si lamida Forifana waxa weeyaan ganacsigaaga inuu dhisan yahay in kale halkan ayaad iska qiimeynaysaa okay retention waxaad ku ogaanaysaa marka sidee baad ku qiimeynaysaa ama sidaad ku ogaanaysaa ganacsigaaga inuu dhisan yahay iyo in kale waxaynu ku ogaanaynaa walaalayaal intee leego active CC ayaa ay sameeyeen teamkaagii imisa qof ayaa sameeyay tusaale ahaan 60% ayaa sameeyay teamkaagii 4CC bishan waxa sameeyay teamkaagii 4CC dad badan baa sameeyay 10 qof ka kooban ayuu ka kooban yahay 8 qof baa sameeyay 4CC maasha Allah waa good maasha Allah taa macna waxaad ogaanaysaa markastoo teamkaagu ay active yihiin oo ay shaqaynayaan halka waxa aynu ku ogaanaynaa in waxa weeye ganacsigaaga stable yahay oo uu shaqaynayo maasha Allah intaas aynu ku ogaanaynaa waayo inagu geeliya ari kale ma xanaanayno waa dadkanaynu caawino oo shaqaynaya oo heer gaadha ayaynu inaguna maxay heer ku gaadhaynaa walaalayaal maasha Allah how many FBO ayaa imisa qof oo teamkaaga ka mid ah ayaa sameeyay dalab in ka badan 2 jeer ama hal mar bishii haddii teamkaagu aanay sameeynayn dalab oo ay ugu dambeysay mar hore waxaad u baahan tahay inaad wacdo oo aad hadasho oo aad ku tiraado maxaa kugu dhacay active maad sameyn 4CC maad sameyn personalki maad sameyn maxaa qaldan halkay ciladu ka jirta aan isla qorsheyno inaad ku tiraado weeyaan marka haddii macaamiishaadii haddii ay dalbanayaan teamkaagii alaab fiican ay dalbanayaan oo personalkoodii ku dalbanayaan isla markaana 4CC ay sameynayaan active yihiin maasha Allah waxa weeyaan ganacsigaagu uu fiican yahay muhiimadda ay leedahay udubkanina waxa weeye ganacsigaagii inuu taagan yahay oo stable yahay ayay noo sheegaysaa your business is more stable ganacsigaagu wuxuu noqonayaa mid taagan oo degan oo jawi degan ku jira ayuu noqonayaa good maasha Allah waaya haddaba walaalayaal tusaale ahaan hal FBO oo bishii dalbada 2CC sanadkii wuxuu noqonayaa maxay 24CC maasha Allah CC badan Soomaa waa hal FBO tusaale ahaan bishii oo kaliya dalbaday ma garanaysaa waxa weeyaan dalbaday 2CC maasha Allah marka hadduu sii retail gareeyo ilaa iyo maxay noqonaysaa salaam January wuxuu sameeyay 2CC February wuxuu sameeyay 2CC maasha Allah qof kalena uu qoray qofkii uu sameeyay isaguna wuxuu sameeyay isaguna maasha Allah haddana qofkii kale qof kale sii qoray halkaas si aad u fara badan ayaa walaalayaal inooga imanaya oo runtii aad iyo aad u fara badan taa macnaheedu waxa weeyaan hal FBO oo waxa weeyi isaguna isa sii duplicate gareeyo isa sii badiya oo isaguna waxa weeyaan DCC sameynaya oo iib sameynaya dadna qoraya
qof kasta markuu u sheegana qofkii kale isaguna sidoo kale samaynayo ganacsigaaga wuxuu noqonayaa more stable ganacsi adag ayaa halkaa inooga dhisan maasha allah haddaba walaalayaal sidee baynu qodobkan iskaga xoojin karnaa follow up inaad samayso waa dariiqa ama xalka saxda ah ee aad tiimkaagina kuwa shaqaynaya kaga dhigi karto macaamiishaadiina kuwa dalabaad badan kaa dalbadaad kaga dhigi karto sideeba haddaba loo follow up gareeyaa waa inaad barato tusaale ahaan beritoole imise qof ayaa tiimkaaga kuu qorshaysan inaad la hadasho qofkii markaad la hadasho eed caadi ula hadasho aniga waxyaabaha ii shaqeeya waxaa ka mid ah qofkii si toosan u wacaa waan weydiiyey halkay wax u marayaan maxaad qabatay bishan maxaa kuu hagaagay ayaan weydiiyaa problem wax alla wixii problem ku jiray oo dhan iyo wixii dib u dhigay oo dhan buu ii warramaya markaa wuu ii warramaya sida daadku igu warramaya wax alla waan wada qoranaya aniguna mid kasta waan qoranaya wixii oo dhan baan qoranaya mid kasta waxaan leeyahay bal ka war haddaan saan samayno wixii oo dhan baan isla xalinaynaa halkaa waxaan kasoo baxaysa marka alaabtii meesha taala inaan wada iibino isla markaana waxa weeyaan aanu dee 4cc samayno horena aan u soconno ayaa kasoo baxaysa walaalayaal maasha allah sidoo kale walaalayaal macaamiishaadii hore wax kaaga dalbatay la hadal markaad la hadasho halka qof wax kaa iibsada inuu hal shay kaa iibsada ha ku samrin waxaad ku samirtaa ilaa uu dad badan kugu soo xidho oo dad badan ma garanaysaa qofkan xiriir la samayso baro xiriir wanaagsan la samee macmiilnimo wanaagsan qof ma garanaysaa waxa weeyaan aadaad iskugu dhowdiin ha noqdo kadib waxaad arki doontaa isagoo dad badan kugu soo xidhaya isagoo waxa weeyaan alaabtaadii mar walba kula bandhigaya kula iibinayaad arki doontaa marka waa qodob muhiima iyaduna walaalayaal maasha allah haddaba waynu isqiimeynaynaa qodobkan si aan isku qiimayno maasha allah sorry walaal codku inaga xidhan yahay because waxa weeyaan trainingku ku dhamaada wixii su'aal aan isweydiin doonaa haddaba sidee baynu isku qiimeynaynaa waxaynu isku qiimeynaynaa walaalayaal waa joogtayn ama stability ganacsigaaga sidii uu u taagnaan lahaa eed u adkayn lahayd weeyaan 4cc active and repeat purchase FPO yacni imise qof ayaa tiimkaaga 4cc sameeyey isla markaana FPO-ga ama tiimkaaga iib labaad sameeyey oo bishii wax imise follow up ayaad ama dabagal ayaad ku samaysay macaamiishaadii ama tiimkaaga aad ku samaysay imise follow up ama dabagal ayaad ku samaysay macaamiishaadii ama tiimkaaga how many ayaad ku samaysay weegan tusaale ahaan ama weekii hore per week isbuucii imise jeer baad samaysaa oo la hadashaa tiimkaaga ama se macaamiishaadii qoro waayahay su-aasha labaad imise FPO ayaa sameeyey tiimkaaga bishii hore active-ka sameeyey su-aashaas si gaar ah inii weydiinayaa su-aashaas imisaa sameeyey okay soo qora insha allah imise FPO tiimkaaga ka mid ah ayaa sameeyey active CC-go 4cc sameeyey bishii hore imisaa sameeyey boqolkiiba imisaa sameeyey tusaalehaan waxaad haysataa 10 qof 10kii qof imise iiba ayay sameeyeen ama ha noqoto ma garanaysaa dad ay qoraan ama ha noqoto maxay macaamiishoodii inay ka sameeyaan 4cc-ga labadan bay ka timaadaa soo ma 4cc wax kale kama yimaado yadda alaabtaad isticmaalaysa adiga shakhsiyan hal cc waa inuu adiga ka yimaado bishii saddexda kalena waa inay ka yimaadaan ama dee alaab macaamiishaada waa inay ka yimaadaan ama se tiimkaaga unbay noqonayaan okay waaya imisaa sameeyey marka sidoo kale boqolkiiba imisa ayaa bishii ugu dambeysay hadda tiimkaaga bonus helay boqolkiiba imisa ayaa bishii ugu dambeysay bonus helay soo qora iyadana insha allah mid walba waxaad siinaysaa markaa point c haddii ay kuu soo baxeen 30 iyo wixii ka badan excellent weeyaan walaalayaal waa shaqo fiican haddii ay kuu soo baxeen 15 ilaa 19 waa very good weeyi haddii ay kuu soo baxeen 15 ilaa 14 pointina explore more waxaad u baahan tahay wax badan inaad ma garanaysaaye kor isku qaada ayaad u baahan tahay waxaynu soo gaadhnay qodobkii ugu dambeeyey ee trainingkeenna ama udubdhaxaadka u ahaa ganacsigeenna qodobkan waxaa la yidhaahdaa walaalayaal
development af Soomaaliya waa maxay development waa koritaan waa horumar waa waxan maanta aad haysato wax ka weyn aad hesho waa adigoo isbedel sameeyo weeyaan halkan u socono waxa weeye inaynu ugu dambeyn gaadhno levelka inaynu soo gaadhno levelka inaad soo gaadho developmentina waxay kaaga baahan tahay inaynu soo qabanno hadda udub dhaxaadyadii aynu ka soo warramaynay oo dhan hadday noqoto dad cusub inaad qorto oo aad active tahay oo waxa weeyaan ma garanaysaa recruitmentigii ama dad shaqaalaysiintii aad ku fiican tahay maasha allah hadday noqoto macaamiishaada inaad kor u soo qaaddo maasha allah waxaasoo dhan markaan soo ururino guulahaad gaadhay oo dhani waxay kugu soo hagi doonaan inaad dareento in ganacsigaaga yimiday koritaan ama development maasha allah shalay 2 CC baad haysatay oo waxaad ahayd assistant supervisor maantana waxaad tahay supervisor koritaan baad samaysay maanta supervisor baad tahay برينا واحد نقطي assistant manager ما شاء الله واحد نقطي كوريتان بات سميس برينا واحد نقطي manager كوريتان وين بات سميس وادي يد وين manager لما manager بات سو صارتي senior manager بات نقطي واحد سميسي كوريتان ادي يد وين ما شاء الله تبارك الله وحويان دقالها جينا مركز صوت كورتو اد وكوريا ولا لا بدن ايا ganacsigaagii soo galay macaamiil badan baa ku samaysmay gaadhigii baad ku guuleysatay jeegii baad heshay dalxiiskii baad ka qayb gashay wixii oo dhan baad samaysay halkan u soconnaa waa halkaas walaalayaal ma sha Allah waa development marka sidee baynu ku gaadhaynaa waa inaynu marka hore teamkii soo dhisno waa inaynu marka hore macaamiisheenii ka adkaano waa inaynu marka ku xigtana labadaasi daryeelno waayo macaamiisha qaabka loola shaqeeyo haddii aad barato isla markaana teamkaaga qaabka loola shaqeeyo aad barato ood mas'uuliyad weyn isa saarto waxa weeyaan koritaanku automatically ayuu imanaya waxna iskama yimaadaan sabab la'aan walaalayaal waxna iskama yimaadaan sabab la'aan wax waliba wuxuu ku imanayaa waa dadaalka iyo juhdiga iyo inaad dariiq iyo systemkaad raacdo ku imanaya haddaad maqashay heblaayo waxa heshay gaadhi maaha wax habeen iska yimiday ama habeenun lidhiho gaadhigaagii laakiin waa qof soo maray systemkan iyo dariiqan soo raacay weeyaan walaalayaal ما شاء الله تبارك الله marka hadaba sidee baynu ku ogaanaynaa inaad horumar sameynayso sidee baad ku ogaanaysaa waxaynu ku ogaanaynaa walaalayaal level advancement intain leg oo levelkaaga ayaad bedeshay an incentive qualification sheegaga waaweyn ee screenka kaaga muuqda ma gaadhay adigu ama se teamkaagiiba ma gaadheen iyadana waxa weeyaan adiga iyo groupkaagu ma gaadheen hadiyadaha shirkadda mid kalena nigu daray certificate waxa weeyaan qofku manager markuu noqdo walaalayaal wana development galka ugu weyn waa halka kumayaalka dooro lagu qaato laakiin halka inaad gaadho waa inaan serious ganacsiga u qaadano waa inaan environmentiga iyo dadka dib inoo dhigaya aynaan dhageysan ha dhageysan dadkaasi naftaada dhageyso adigu waaydaada dhageyso waayaan ugu jira ganacsigani maxaan ugu soo biiray ganacsigani dhageyso naftaada gudaha waxay kuu sheegayso iyo waxaad u baahan tahay ayaa ku xoog weyn waxa banaanka kaaga imanaya marka taa dhageyso insha Allah ta'ala teamkaagana kor u qaad teamkaagana la shaqee kadib waxa weeyaan udubka waad ka adkaanaysaa oo si fiican ayuu kuugu dhaqaaqi doonaa insha Allah ta'ala faa'iidada ay leedahay inaad levelka soo gaadho ama koritaankan aad samayso waxa weeyaan walaalayaal wax kale maayne you build a residual income waxaad heli doontaa dhaqaalaha boqorada dhaqaalaha adag oo degan oo shaqooyin kale iminka haddaad haysato aad kaga maaranto adigoo gurigaaga joogana aad dhaqaale fiican oo kugu filan noloshaada aad samayso happy iska ah istirax iska ah aad dhaqaalaan xoog lagu sameynin aad samayso isbedel muuqdana aad gaadho ayay keenaysaa tani ma sha Allah tabarakallah haddaba development ayaynu walaalayaal u baahannahay ma sha Allah marka tusaale ahaan ma sha Allah waxyaalaha heli doonto waxa kamid ah manager hadduu ka soo asbaxo leadership income dhaqaalaha hogaamiyaha ayaa ku bilaabmi doona oo tusaale ahaan manager hadduu maanta ka soo asbaxo dhaqaalihii awla ka helayay group bonus ku ahaa laakiin hadda waa leadership income waana inta green ka weeyaan cagaaran weeyaan inta blue ga ahna waxa weeyaan walaalayaal waa dhaqaalaha group bonus kuna waxa weeyaan waa teamkaaga aan wali manager gaarin
dhaqaalahaad ku yeelanaysa ee commission ahaan aad ku yeelanaysa weeye sidoo kale monthly bonus bishan bonuska ku yimiday waa inuu kor aado horumar aad samaysa bisha hore dad $1,000 qaadatay bishan waa inaad lacag ka badan u diyaar garowdo insha allah waayahay markaa sidee baad ku gaari kartaa waxaynu ku gaari karnaa inaynu samaysano qorshe maalmeed qorshe isbuuc leh iyo goolal waaweyn inaan dejisano marka gool weyn ma leedahay gool weyn oo ganacsigan aad ka gaadhayso ma jiraan ma ku muuqda big dream yani wax weyn ma aha goolasha waaweyn ma aha inaad biilkaaga ka bixiso shirkadda ma aha hooyina lacag uga dirto ma aha inaad telefoon ka soo iibsato ma aha inaad prepaid ka heshaad mobilka ku charge garaysato ama connection internet ma aha waxyaabahaas waa basic weeyaan waa nolol maalmeedkaagii ma aha nolol maalmeed kama hadlayno big dreams dreamyo waaweyn oo ganacsigan aad doonaysa inaad ka gaadho may jiraan the goals marka goolal waaweyn ma leedahay imisa leader baa la goolal waaweyn oo dejistay tusaale ahaan ay kuu qorshaysan tahay inaad waxa weeyaan maasha allah aad xajka adigii waalidkaaga baad ka biiso aad guri weyn ka dhisato aad maalin ka mida si dalxiisa oo aad dalxiisada waaweyn shirkadda aad uga qayb gasho ama waxa weeyaan aad reerba ka yeelato maanta aad nolol kelinimo aad ku jirto waxa weeye maasha allah yani waa goolashaada waaweynee nolosha weeyaan marka waxyaabahaasoo dhan ma kuu qorshaysan yihiin oo goolal waaweyn weeyaane ma kaaga qorshaysan inaad shirkadda ka gaadho imsa leader ba u qorshaysan yihiin maasha allah faadima hambalyo ayub maasha allah hambalyo maasha allah congratulation leaders hambalyo maasha allah hambalyo dhammaantiin hambalyaan leeyahay goolal waaweyn aan yeelano isla markaana dhammaantiin waan hambalyanaya isla markaana aynu baranno qaabka loo dejisto waxa weeyaan waxaynu ku gaadhaynaa horumarka aynu doonayno ama developmentka aynu doonayno ayaynu walaalayaal ku gaadhaynaa sidoo kale waxaa lagaa doonayaa train and demonstrate marka waxa lagaa doonayaa inaad tababarto teamkaaga oo leader active ay kuu soo baxaan oo waxa weeyaan demonstrate adiguna aad ay kaa go'naato oo wax badan aad tusto oo waxaad ku dhaanto aduu role model baa tahay adigaa lagu eeganayaa adigu waa inaad ma garanaysaa hadday kugu daran tahay xataa inaan lagaa dareemin hadday kugu daran tahay xataa inaan lagaa dareemin ba la doonaya tiimkaaga inay kaa dareemin tiimkaaga inaad barwaaqo aduu sahamisa la doonayaa tiimkaaga inaad golal waaweyn la dejisaa la doonayaa qofku markuu cusub yahay haddii aad labada siisi ku mashquuliso qofkaasi way adagtahay shirkadda si uga mid noqdo laakiin haddaad golal waaweyn iyo ahdaaf waaweyn aad la dejiso qofkaasi hore u soconaya walaalayaal maasha allah waa inaad wax weyn tusto qofka waa inaad noloshiisa uu qofku ka dhex arka halkan adiga maanta maxaa kugu haya ganacsigani ee aad la dhex joogtaa waxaad la dhex joognaa oo dhammaanteen bay nagu hayaa waxaynu leenahay golal waaweyn ama ahdaaf waaweyn baynu leenahay ahdaaftaas inaan doonayna inaan xaqiijino marka kuwaas waa kuwa ina haya waa idina weeyaan why aan ugu jiraa forifa why aan ugu jiraa marka qofku why markuu garanayo sababta ugu jirana waxa weeyaan waxbaba kama xumaanayaan walaalayaal kadib waxaa lagaa doonayaa tiimkaaga gaad inaad dhiirigeliso oo aad tilmaanto isla markaana waxa weeyaan encourage aad u samayso waa dhiirigelisaa la doonayaa koritaanku wuu imanaya bonus bay tiimkaagu helayaan adiguna waxa weeyaan maasha allah dee meel qurux badan baad gaadhaysaa ma doonaysaa inaad forever living guul weyn ka gaadho ma doonaysaa inaad waxa weeyaan aad jagooyinka waaweyn aad u tartanto forever waxaasoo dhan waxaad ku gaadhi kartaa ama principalka ama qaacidada guud waxa weeye caawi walaalkaa u baahan fursaddan caawi walaalkaaga u baahan fursaddan caawi maalintaad aragta tiimkaaga iyo si fiican u shaqaynaya iyo adigoo mas-uuliyad fara badan isa saaraya maalintaas waa maalinta aad koritaan fara badan aad samaynayso maasha allah tabaaraka allah qofna ha ka sugin shaqo adigu aad leedahay inuu kuu qabto in badan oo inaga mida waxaa laga yaabaa in waxa weeyaan waxyaabaha ay hore ugu socon lahayn ay tahay mas-uuliyaddii oo iska wareejiyeen mas-uuliyaddii qofkii ay qoray uun oo ay ka sugayaan oo ay doonayaan isaga iyo tiimkiisiiba in waxa weeyaan qofkani uu maamulo uu gacanta ugu hayo qofkani waa bilaadan maxaa kuu diiday adiga tiimkaaga inaad gacanta ku qabato oo aad alaabta kala barto ood hore u socodsiiso oo leefalada qaabkii ku bedelaan uga sheekaysto ood maalintii dhowr qof la hadasho oo waxa weeyaan dhiirigeliso maalintaadaad qorshaysatay mise qof baad la hadlaysaa tiimkaaga maanta waxa weeyaan mise qof ayaa waxa weeyaan dad cusub warbixin siinaysaa qof walbaad ka tijaabiso adigu aad dalaalimo iyo doogsi
iyo tilmaan wacan inaad siiso maxaa kuu diidaya waxba inoma diideen walaalayaal inaad adigu sahan baad u tahay ya sahanka waxa weeyaan walaalayaal reereenii oo kale kolay Soomaali baynu iska nahay dee bilaa sahan xoolaha lama raro waxa sahan baa la sameeyaa waa loo dalaalimo tagaa waa la soo eegaa meeshaas haddii roob iyo barwaaqo ay ka jiraan baa reerka dhan la raraa oo la geeyayo safar dheer la galaa marka safar weeyaan waxaynu ku jirnaa waa inaad tiimkaagii meel barwaaqa inaad ku wado ay arki karaan weey si ay safarka kula galaan laakiin hadday ku arkayaan meeshanaad ku wado dee inaan waxba aanay ka soo naasacadayn kuma raacayaan marka maxaa linaga doonayaa inaan hogaamiyayaal dhaba noqono insha allahu tacaala si uu udubkani noogu dhisnaado guud ahaan waynu soo ururinaynaa walaalayaal aad iyo aad baad u wada mahadsantii waqtigiina aad iyo aad ka qaaliga ah maasha allah marka haddaba haddii aan iska qiimeyno developmentigan ama koritaankani waan isqiimeynaynaa imiso first step to manager mataqaanaa buugga cid akhrid nagu jirta buugga la yidhaahdo tallaabooyinka ugu horeeya ee uu qofku qaadayo si uu waxa weeyaan uu u noqdo manager waaya tallaabooyinka ugu horeeya ee aad qaadayso si aad u noqoto manager buuggaas af Soomaaliya gurbidii noo yaala ma akhridan marka imisa qof ayaa akhriyay buuggaas xabsa walaal buugga lagu soo diraya maasha allah Faadimo Nuur ay akhriday hambaliyo Leila wali ma akhriyin Leila maxad akhri wada group ku yaala buuggaas hadda waan soo dhigaynaa insha allah waaya yaa akhriyay imisa leader baa akhriyay inoo dedejiya insha allah okay good groupka lagu soo dhigi xabsa insha allah xaliimo dhamaantii wad maasantiin wad akhriday marka haddaba haddii aad akhriday buugga oo aad garanayso macnaha uu taagan yahay maalin dhaweyna tababar baynu ku samaynay imisa buuggaas ah iyo kulano ayaad la yeelatay tiimkaaga bishii tusaalahaan imisaad la yeelatay buugga firasiista waxaan u akhriyay tiimkayga ma garanaysaa 5 jeer isbuucani 10 jeer baan u akhriyay kulano kale oo tiimkaygaan caqabaadka iyo wax walba kula ogaanayo waxa weeyaan walaalayaal waxaan u akhriyay intaas yani waxa soo dhan waa inaad qorto insha allah qora training meeting with FPO Berman imsa tababar baa siisay tiimkaaga wali tababar ma siisay tiimkaagi ma bartay forces waxay tahay ma bartay waxa weeyaan darajooyinka si ku bedeli karaan ma bartay marketing planka iyo sida darajo kasta markay gaadhaan ay faa'iidooyin ugu helayaan maynu barnay waxa soo dhan maasha allah marka waxa weey sidoo kale imiso FPO oo groupkaaga ah ayaa incentive ka mid ah incentive-yada gaadhay incentive waxa weeyaan hadiyado bishan waxa jira qaybta bariga dhexe alaab aad u fara badan oo dhowr iyo 20 shay inay tahay baan filayaa oo hadiyada baa jirta qofka incentive-kaas ku guuleysta waxa weeye waa koow inuu active yahay oo forces-igi sameeyo July and August labada bilood gudaheed isla markaana waxa weeyaan walaalayaal oo de 5 qofna oo assistant supervisor-na uu soo join gareeyo alaab aad u fara badan ayuu qofkaasi helayaa hore waan u soo dhignay bishii hore waa la soo dhigay marka qorshaha ma ku darsatay bishii hore active ma ahayd assistant supervisor ma tahay haddana ahayna teamkaagu ma yihiin 5 qof haddii ay markaa bishan buuxiyaan alaabtaas ay helayaan alaab aad u badan weeyaan walaalayaal oo xarunteena Dubai la inooga soo dirayo Hargeysa ayaana ka qaadan doontaan insha Allah ta'ala marka mid kasta oo kamid ah 4 qodob ama 3 qodob wixii aad qabatay mid walba point C haddii 10 point in ka badan ay ku soo baxday leader fiican baa tahay oo teamkiisa u wanaagsan oo walaalihii kaliya soo gelin laakiin caawinaya ma sha Allah hambaliyo haddii 5 ilaa 9 aad heshana waxa tahay leader wanaagsan hore u sii soco haddii aad ever ilaa 4 aan sameeyna ana bishan waxa weeyaan wax tababar ana teamkaagi siin adiguna wax caawimaad aanad u qaban wax badan baa ka dhimanay de kor isku soo qaad canaan kale ma lihide waxa weeyaan kor isku soo qaad okay insha Allah ta'ala oo ganacsiga kor aanu soo qaadno ma sha Allah tabarakallah walaalayaal aad baad u mahadsantiin dhamaantiinba waynu soo gunaanadeynaa caawo waxaynu aragnay training aad u muhiim ah ma sha Allah walaalo qaali inay ka faa'iideysteen trainingkan muhiimadiisu waxa weeye inaynu ganacsigeena lugihiisa adkayno
oo aynu luga adag u yeelno weey lugaha adagna waxaynu ku soo ururinay 4 meelood 4taa meeloodna waxay kala yihiin recruitment oo ah dad shaqaalaysiin retention oo ah joogtayn ama stability inuu ganacsigaagi taagan yahay productivity oo ah wax soo saar ama inuu koritaan ganacsigaagi wax soo saarayo faa'iido soo saarayo ama development oo ah koritaan ama horumar mid kastaba inaad fahanteen baan rajaynayaa oo tusaale ahaan shaqaalaysiinta faa'iidada ay ku leedahay aad fahantay retention productivity waxay faa'iido ku leedahay aad fahantay labada oo ka dhex shaqayso oo macaamiishaada iyo dadka shaqaalaysiisay oo aad dar yeesho iyadana faa'iidada ku jirta inaad fahanteen baan rajaynayaa development koritaan inaynu samayno faa'iidada ay leedahay inaad fahanteen baan rajaynayaa aad iyo aad baan uga mahadsantihiin waqtigiina qiimaha leh waan niiga mahad celinaya waa 10kii barkii insha Allah intaynu kulan kale isugu iman doono intaas baynu barnaamijkeena kusoo gabagabaysan doonaa walaalayaal waan idin wada mahad celinayaa